daaroodow haddaan dhahdaan laascaana somalilan ka mid noqon mayso waqooyiga gaalkacayna galmudug noqon maysta dhahdaan daaroodow waxay ka micno tahay waxba isku darsamayn soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadbakiinna taagdarane taageera weligiine samalaay toosoo waxa weeye halkaan irir Soomaalo dhan baan fadhiya waxaan rabaa marka inaan hadalka idiin soo koobo idiin qodobeeyo aad si fiican u dhagaysataan waxaan ka hadlayaa waxaana weli ka hadlin dadkana aysan ku baraarugsanayn waxa weeye beesha daarood ee aynu deegaanka iyo diriska iyo dhalinyada nahay ilmahooda been bay u sheegaan carruurtooda been bay u sheegaan taariikh aysan lahayn dhul aysan lahayn boqortooyo aysan lahayn halgan aysan lahayn intaas bay u sheegaan anaa maanta idin cadaynaya anigu hadalkaygu uu diiran yahay marka ha loo dulqaato wey waxa weeye ninka la yidhaahda axmed guray waa nin karilla ah oo seexawlo karilla ah oo curudka hawiye ah waxayna ku sheegaan taariikh kale ninka halkaas saaran taallada halkaas saaran ee dhagax tuur la yidhaahdana waa nin sacad oo farlaah hadday rabaanna way sheegtaan dhegayso ninkaasi waxa weeye nin farlaa weeye anaan idiin abtirinaa dartiin maanta ilaa abtirka tobanaad idiin sheegayaa waxaa weeye taariikhaa dhacay raggan wasaaradda warfaafinta ay haysteen iyo hanuuninta dadweynaha waxay iska qorteen gabayo iyo taariikho aan sax ahayn waxaan rabaa kale idiin sheego halganka markii mataqaanaa codka mataqaanaa xorriyadda la doonayey nimanka doon rag irir Soomaali ay ahaayeen ragga tegey qaramadii midoobay Cabdullaahi Ciise Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay ahaayeen ragga daarood aawen waayahay waxa kaloo isweydiinayaa markii doorashada qof iyo cod dalka ay ka dhacaysay laba nin baa madaxweynimada Soomaaliya u tartamay aadan Cabdulle Cusmaan iyo Shaacir Jimcaale ahay daaroodku waxay ku maqnaayeen alla ii sheego soo laba nin oo irir Soomaali maaha halganka Sheekh Bashiir baa ugu horeeyay Sheekh Xasan Barsale daaroodku maxay guul ka gaarnaa ii sheegaan waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa xagga dimuqraadiyadda aadan Cabdulle Cusmaan madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya nin irir Soomaali ahaa dimuqraadiyadda u wareejiyay xilka عبد الرشيد عرشر ماركا كل حاجة يدلي يوم هاي واي محمد سياد برا ذلك قبضة كولات سنة هل ما الدورة شو بقبتي يا سارة إرسمان يا سارة بدي سمع حوبضي هاي واي علي مهدي محمد يا عبد القادر صلاح حسن يا شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود هل مركوسك بسكول الجين عبد الله يوسف أحمد أي ميدو نمداروضة هاي ذلك محوكين عاصمة مغشو حبشوكين ديمقراطية مكوبة حمس حبط واي هاي محمد عبد الله فرماجو بورصوت وداروضة هنوي بفالو قبر بو نقاق بحيل بانا هاين وسود وينه وأمش حردنا وفرماجي يجي عندنا كل سجان صارنا يسوي عبيه يسمى مدحوينا كنقنا محن نوسبي هذا ونيك بيبه عبد الرشيد بالي هكذا فني عيروي هكذا فني المهي ونقول له مدحوين يا سود وينه ديارة دولة رضي مركب حويه ديمقراطية النوع عسوي حسيق وديبي فرماجو وديبي عبد القاسم وديبي علي المهدي وديبي mataqaana cadawdi way qof kasto ir Soomaaliland dhaqan kaas uu leeyahay kursiga isku dhajima waadiba ayagu la ka qabsanayaan waayahay wax kala ii sheegaya nimanka aan xifaaltana daaroodku hal shirkad oo leeyihiin Soomaaliya hal sheeg ama hal jaamacad ama hal isbitaal ay ku leeyihiin dhulka xorta ah ee Soomaaliyeed Djibouti Somaliland iyo Soomaaliya ii sheega اوكي لاس عالم markuu dagaal ka dhacay daabshiil iyo tara Soomaa caawisay oo u geysay dadka barakacay lacagta 200 kun iyo 150 kun waana shirkada Air Soomaali
bal ayagu waxay geeyeen shirkadooda hanoo sheegaano waxaa ma geyn waxay geeyeen ayaga cay iyo dagaal waxaa weeye dhulka xorta ah ee Soomaaliyeed saddex caasimadood buu leeyahay dhulka xorta ah Soomaaliyeed wixii aan xurayn ka hadlimayno Itoobiya Kenya haysato waxaa weeye waa Muqdisho iyo Hargeysa iyo Djibouti saddexdiya iskale saddex in Soomaali ma tahay dhagayso shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo bangiyada iyo tiifiyada caalamiga ah ee madaxa bannaan ee ganacsiga iyo warbaahinta Soomaaliya yaa iskale hadday noo sheegaan daarood hal tiifiyay leeyihiin hal bangiyay leeyihiin hal isgaarsiin leeyihiin dalkaani waxa weeye majority ka yihiin haddii ay waayaan waxay ka yihiin minority waxa weeye haddaan ka soo tagno dhulka ilaa Djibouti haddaan ka soo tagno ilaa Somaliland waxa weeye labada shabeelle iyo banaadir marka la isku daro wuxuu caawin karaa geeska Afrika oo dhan dhaqaalaha yaalla ee beeraha sidaa daraadeed waxa weeye annagu waxaynu nahay milkiilayaasha awlaadul caasima dadka iska dhulkan ee loogu yimid ee orjinka ah waxaan rabaa inaan micneeyo ereyga Soomaali muxuu yahay ereyga Soomaali waxa weeye sagaalka Soomaali la yiraahdaa Soomaali waxa laga wadaa marka la waxeeyo qof wanaagsan oo samaha ka shaqeeya koow labo waxa laga wadaa Soomaal oo ah hasha Soomaal saca Soomaal rida Soomaal markaa ayaa loo fasiray oo dib loogu bedelay Soomaali marka Soomaali waa qof wanaagsan oo Soomaalay oo dadka asuumi jiray oo mataqaanaa loo soo marti jiray sida weey waa dadka asalka dhulka iska lahaa waxaan ugu dambayn leeyahay marka oo mahad celinayaa dadkii isaga yimid maanta Somaliland Djibouti Kenya Ethiopia iyo gudaha Soomaaliya iyo gobolada dalka isaga yimid waxaan u yeerayaa Sakariya Nuur Saajid inta ay Sakari halka imo waxaan leeyahay daaroodow horay waxaad samaysteen qalad siyaasi maalin walba annagana walaalihiina nahay si wanaagsan baa idila hadlaynaa waxaan leenahay xabadda annaga waa naqaanaa waa dhimannaa waa naga dhima jiray waxaan leenahay xabad iska dhaafa xabadda joojiya Cabdullaahi Yuusuf oo konton kun oo ciidamada militariga Itoobiya wataan noo yimid muxuu ku dambeeyey eber ku dambeeyey annaga dulqaadku waa leenahay marka waxaan idin sheegaynaa daaroodow haddaa laba arrin samaysaan hadalkaas hal dhageysto maanta waxbaan ku baaqayaa daaroodow haddaa dhahdaan laascaana Somaliland ka mid noqon mayso waqooyiga gaalkacayna galmudug noqon mayso dhahdaan daaroodow waxay ka micno tahay waxba isku darsamay kol haddaad magaalooyinkiina diidaan magaalooyinka imaamulada Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya hoos tagaan diidaan waxay ka macno tahay inaad samaynaysaan cunsuriyad ah meel uu qof isaaqa iyo qof hawiya iyo qof dira madax ka yahay wax ku darsamayna dhahdaan annagana waa diidi doonaa hadda wali waa caymanaa intaan wali idin ogolnahay na ogolaada oo is ogolaashaha aan wax ku wada qaybsanno haddii kale idinkana dhulkiina omaska ahaad maamulo doontaan annagana barwaaqadiina joogi doonaa waxaa weeye gobolka Itoobiya marka laga hadlayo ugu weyn Itoobiya Soomaali galbeed ee la yiraahdo Dirdhabe annaga iskale waana gobolka ugu weyn waayahay madaxweynayaasha maanta Soomaaliya iyo Somaliland iyo Djibouti waa erer Soomaali saddexaas madaxweyne waayahay ugu dambayn aan soo gabagabeeyay shirka waxaan munaasabad siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo marna sadaqno ah Ismaaciil Umar Geele dhammaanteen waa salaamayna waxa arkaysaa buuqan wuxuu ka bilowday waagi gabadhii Ismaaciil ay hawiyuu doonteen ee erer Soomaali Djibouti isugu tagay ee nagu bilaabatay buuqaya xabadda waa laga baxayaa waxa weeye gacanteena isqabtaynaa Soomaaliya
توصو اسكتير سداي هدبكين تقدرني تاغير وليغيري سماراي توصو اسكتير سداي هدبكين تقدرني تاغير وليغيري شركة اللي بعد واحد جيسة شركة سدحاد واجبوتي شركة اللي بعد واحد جيسة شركة سدحاد واجبوتي وما سنتين سونا وهذا وعرب عينا برو نكا إدارات كوهن جوية ويه سكرية نور ساجين بالين هذا ونين راشع الساق وهبر يونس وحال سعيدة وحاوي نكا أنا قال طلياني الرومن جوجا أكتس الله مركب أكرم مسيجنا هبار لا يمكن وايد وأنا ما سنتي شركة وأنه حرية على عتيب